عدل جدا. media waxay wareysanaysaa samafalaaweyn Cabdimalik kaasoo caawa qayb ka ah dadka daawanaya ciyaarta u dhaxaysa degmada Hodan iyo sidoo kale waa bari muddo 32 sano kadib ayaana Soomaaliya markii ugu horeysay habeen lagu ciyaaraya Cabdimalik soo dhaw Durdur media aad baad mahadsantiin Durdur waan ku faraxsanahay maanta inaan maxaa ku sugnaado yani garoonka ay maxaa ciyaartu ka socoto gaar ahaan garoonka maxaa Banaadir waa Hodan iyo waa bari runtii habeen lagu ciyaaro oo waliba 32 sano ay ka soo wareegto waliba intaas ay soo martay Muqdisho xaalad nabadgelyo darra yani fariin maanta diraysaa waxay fariin badiraysaa ay sheegayso in magaaladii ay ku socoto jidkii maxaa nabadda rajo badan oo la qabay in magaaladii mar uu noqdo nabadeedii ku soo noqoto ayaa iftiimay ayaa muuqda oo loo socda ilaahay waxaan ka baryaynaa in magaalada nabad ka dhigo ciyaartan caawana inay nabad ku soo dhamaato way Cabdimalik waliga ciyaar habeen dhacay sidaan oo kale ma imaado oo goobjoog ma garoonto Soomaaliya maya runtii maxaa bari aan joogay dalal kale ha waxa weeye waan daawaday habeenimo waan daawaday iyadoo ay soconayso laakiin yani Soomaaliya huwa markii ugu horeysay aan ku arko maxaa ciyaar habeenimo markii hore galab baan soo diyaar garow laakiin waxaan maqlay mar qura ciyaartii ugu dambeysay waxay dhacaysaa habeenimo dhacaysaa marka waxa weeye waa markii ugu horeysay aragtida mas'alada intaan oo dada ayaa xilli habeen ay isugu imaan kara Muqdisho ciyaar iyadoo dhacayso kubadda cagta ku dhawaad saacad ka hor ayaa maxaa dabaddan soo istaagay dadweynaha aad u badan baa maxaa albaabada laga xidhay oo yani la doonay la kala nidaamiyo saani mar qura xagga amniga iyadoo la habeynay marka waxaan isii war dadkii garoonka ciyaartii aan bilaabino wali albaabkan si rasmi loo furin saalayma intaas in la in ka badan baa uu buuxaba garoonka dad badan baa dabadda fadhiyay marka runtii waxay cadeynaysaa in dadkii maxaa amni dareemayaan oo qofka doon amni dareemin halkan ma yimaanay marka waxa cadeynaysaa inuu qofku isleeyahay halkan waxa bala ka dhicmaysa insha Allah ilaahay waxaan ka baryaynaa amnigan amni daradana waxa keenaya waa cadow maxaa Soomaaliyeed ay oo ku dhex jira baahin muuqaal wanaagsan oo bulshada u baahaysa muuqaalo aad u cajiib ah maxaa oran lahayd oo caawan halkan iyo Durdur media aday tahay intaaj iclaami ama media production soo saarista warbaahineed waxaan leeyahay oo dhalinyarada dadaalaysa tiin hore u socda inaad maxaa isku hawshaan oo habeenimo ciyaar soo tabisaan waxay cadeynaysaa inaad higsanaysaan inaad horumar gaadhaan marka niyo horumar gaadha aanu idila aragno waxa duubtaan iyo waxa soo bandhigtaan waxa weey anaga labteed maxaa anigu deew warbaahinta inay kala mid ahay marka insha Allah bulshada waa u bandhigi doonaa waxa maxaa aad soo bandhigi doontaan insha Allah aad baad ma santaa Durdur ma sanid kooxda kubadda cagta ee degmada waa bari tanina waxay ka dhigan tahay riyo cusub oo Soomaaliya u curatay maadaama xilli habeen ah la dhigayo koobkii degmooyinka gobolka Banaadir شو عنده ايه واقع يريد
idilkiiba waxaad nagala socotaan ama aad naga daawanaysaan durdur media caawa sidaad arkaysaan fantastiyaha loo dabaaldegayo labada degmo ee hodan iyo waaberi ayaa caawa halkan ku tartamaya waa finaal intii abad ma aysan dhicin waxay 30 sano kadib halkan ayaa caawa lagu ciyaaray sidaa wada daawanaysaan waxaa ila taagan afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax xalane ku soo dhawaaw durdur media وما سنتهي عبد النور دردر ميديا وان كدوهي aad iyo aad baad u mahadsantahay waqtigiina qaaliga aad soo siisaan gobolka banaadir ee ciyaaraha ka socda gobolka banaadir ee caawa finalka waa bariya hodan ay tahay oo kaambiyadii hadda la marayo ee orodkii bilowday inaad ka soo qayb gashaan oo tabisaan oo ummadda u gudbisaan sharafay u tahay dawladda hoose ee gobolka banaadir aad baan ummadda Soomaaliyeed ee daawanaysa leenahay waa habeen taariikhi ah 7 sano kadib in caawa garoonkii istaadiyo banaadir lagu ciyaaro ee lagu dheelo gobolka banaadir aad iyo aad ugu mahadcelinaya markii laga soo tago ka soo qaybgalka kulankan xiisaha badan caawa ka soo qayb gashay laba degmo ayaa halkan ku baratamay marka laga soo tago ka soo qaybgalkaasi labada degmo keena taageersan runtii aniga degmada aan taageersanahay ani ahaan oo aan hore u taageeray hadda garoonka waa uga maqan tahay laakiin labada degmo oo caawa ciyaaraysa waxaan taageersanahay degmada hodan wax la lagu leeyahay waxaad rajaynaynaa labada gol soo gudootaan si fiican hadda way u jeeday inkastoo goolka hore aan ka saarinay aan dal badan aan sameynay oo weerar badan aan sameynay haddana wax aaminsanahay labadan gool in 45 waxaan taaganahay garoonka bilicda samee istaadi Kolis caawa adiga aan kula taaganahay wariyo wareysanayso waa ka nasiib badan aniga ma sha Allah meeqa sano ka hor aad ugu dambeysay 32 sano kadib waa 1986 xilligaas waa daawanaysa adiga wajig 83 madbacadii jaayo waayahay on joogay garoonka bilicda samee istaadi Muqdisho caawa yaa guusho rajanay aniga horta sideedaba waxaan waa bari hadda laba gool ayaan leeyahay farxad weyn ay soo muuqato muxuu ahay sanadkii hore bonder arabtay sanadkii hore xamar weyn arabtay gudoomiyahan hodan waa ma santahay ismay cabdi degmada Turkiis degmada warta nabad waayahay guush sidee ku gaartay guush wala horseedna guush waa iska xanuun sax laakiin ina koowaad soo galay rabay laakiin labadaas dhaawac awgeed aad ma santahay markan waxaan la joogaa Cabdisalaam magaciisa aan sheeg Cabdisalaam soo siyaad firiis ma dheer ay goosh daada dhalis goosh xaalada degmada ma sha Allah alxamdulillah ka ku guuleysay waa bari guul waa tahay rajadiina koosdeed markay inta la goolisha taan dhalay wallahi horta aniga qaada sanadkan waa nooc cadad ilwaa soo reer mudana soo reer cidna xaq lama wajrin alxamdulillah ilaahay ma iskale dadka durdur meedii ka daawanaya YouTube maxaa leedahay wallahi aad u faraxsanahay durdur meedii aad u faraxsanahay duminta Soomaaliya dadka qalqaati xastoobna aad ma saaxiibkay waa bir xalana mar ugu zaxmar kale ma taglo ma doona ku cushan doonaan bitin insha Allah caawan waxaan farxad noo 32 sano kadib in aan maxaa wahay aan Soomaaliya lagu qabtay habeen waa tahay durdur meedii aad naga daawanaysaan waa ciyaaryahan ka tirsan ee degmada hodan ee lagu guuleystay koobka laga qaaday magaciisa taan Nuur Ismaan Dalbas Nuur dareenkaaga waa sidee aad baa u faraxsanahay degmo saaxiibadeena qaadeen inkasta wax badan aan soo reebnay si fiican maantana waxay noqotay in aan la reebo aad baa u faraxsanahay wax walba waxa waa cadi madow waaye laakiin waxaan soo baxnay cawada in aan guuleysano saaxiibadeena diriska ayaa qaaday oo ku faraxsanahay tani maxay ku muujinaysaa ilaa haweenay inaad magaalada Muqdisho ku ciyaartiin wallahi bilaahi waxa waaye isbedel weyn oo ka dhacay gobolka banaadir waxa aad baa u faraxsanahay in haween dheelno misleen haweenay waa leeli doona